Assalaamu calaykum asxaabtayda qaaliga ah soo dhawaada waxaa videogan kugula wadaagi doonaa sida ugu fudud isla markaana aad u quruxsan karto qolkaaga fadhiga maadaama ay iid soo dhowdahayna waxaa rabaa insha Allah inaan idinkaga faa'iideeyo inta beriyo ka dhimanna aad isku diyaarisaan insha Allah qolkiina fadhigana aad ku quruxsataan isla socod wanaagsan. qodobka koowaad ee ugu muhiimsan waxaa waaye horta qolka mar walba waxaa qurux badan qolkaaga rinjiga marsan iyo alaabta inay yihiin kuwa isoo saarayo. qolka hadda waa cadaan insha Allah waxaa adeegsan doonaa kalaradan soo socoto. meesha hadda waxaa jooga oo dharka barkimo ayaan ka samaysan doonaa maradan gacanta aan ku haysto oo buluug maariga iyo cagaarka iskugu jiro. kuwan waa grey, fadhiga waxaa waaye blue mari, sidaa darteed blue mari iyo cadeys iyo waxaa adeegsanaynaa maradan oo hadda isku jirto. waa kaasa hadda waxaa soo dhigdhigayaa barkimaha aan adeegsanayo. size-kooda waa dhexdhexaad, hadba waxaa waaye fadhigaaga intuu la egyahay ee ku xiran tahay. 4 fadhi waaye, 2 yaryar iyo kuwaan waaweyn. kuwa waaweyn waxaa saaray 6 barkimood. marka 6da xabo waxaa waaye 2 iyo 2 liisho iyo 2 kan oo 2 xabo ah oo kalar kale ah. macnaha midkiiba 2 xabo ayaa ka soo qaadanaynaa. cadeys 2 xabo, midka nashqada 2 xabo iyo buluug maariga 2 xabo. intaas saaran kuwa dhaadheer. kuwa nafarka waxaa saaran hal kalar. fadhiga qolka waxaa meeshaas u jeedin labada kursi dhexdooda waxaa firaaq badan ka dhaxeyso. xoogaa yar zaa'id ay firaaq u tahay, sidaa darteed waxaa isticmaaleynaa miis yar. hadaa awoodid ama haysatid waxaa adeegsan kartaa geedaha la adeegsado guryaha lagu quruxsado cagaarka oo kale. daaha kusoo hiri, daaha kalarkiisa asna waa cadeys maadaama barkimaha ay cadeys ku jiraan. iyo nadkaas ama qaybta dhexda ku jiro biisaha loo yaqaano oo asna qaybta hoose wuxuu ka yahay cadeys. waa fahamteena filaya insha Allah. sidoo kale waxaa rabaa insha Allah inay wax maajin isku sameeyaan. u jeedina u maleena barkimaha cadeys waaye, daahiyada xoogaa cadeys ku jiro iyo buluug maariga iyo cadeyska aad isku soo saarayaan. daaha biisahana qaybta hoose sidaas uu ka yahay. daahiyada waxaa ka helaysaa micraaj carwada la dhaho bakaaro ku taalo. dhulka hadda waa u jeedin shumac uma baahno, roog uma baahno, mutuleelkiisaaba yacni cajiib ah oo aad u qurux badan. derbiga cadaan waaye, mutuleelkan waa cad yahay. sidaa darteed waxaa adeegsanaynaa insha Allah ilaahay kuma darnaaday roog yar ama ruumi yar aa adeegsanaynaa insha Allah. ruumigaaseeto waxaa rabnaa asna inuu maajgareeyo daaha fadhigana maajgareeyo ama uu ekaado. hadda ruumigeen wuxuu ka kooban yahay 3 kalar. markaan suuqa joogaa waa soo fiirinayay. waa cadeys iyo iskugu jira buluug maari iyo grey. waxaa u jeedin meeshaan fareemyo waxaa jooga mataan. fareemyada laftirkood waxaa muhiim ah fadhigaaga inay soo maajgareeyaan ama u ekaadaan. hadda ani waxaa qaadanayaa fareem fadhigu u eg buluug maari ah maadaama cadeyska xoog aa saaray buluug maarigana asana saasoo kale inaan la hilmaamin oo fadhiga yacni waxaa la rabaa uu soo qabsado. waa u jeedin 3 xabo iskula socdaa. wuxuu iskugu jirayaa fareemkan cadeys iyo buluug maari. ma fahanteen? sidoo kale madow mar walba aasaasi waayo guriga qayb ka mid ah inuu ka muuqdo. fadhiga marka qaybta banaan ee derbiga ah blank ah waxba ku dhagneynay firaaqada ah ayaa fareemka ku dhijisanaynaa. 3 xabana waa isku wada dhijinaynaa. haddii aad heli kartid hal xabo fareem oo weyn waa adeegsan kartaa. haddii kalena 3 xabo inaad si toos ah iskugu dhijisid si quruxdiisu ay u soo baxdo insha Allah. hadda 3 xabo saasay ku soo baxeen. hoostiisna waxaa yaalo fadhigii oo barkimihiisii iyo wixiisii ay wada saaran yihiin. fareemkana waa kaasa. fareemkana waxaa kasoo qaatay mataan. meelo badan way yaalaan fareemyada. maxaa la dhahay xamar weyne meel walbo aad qurxin aad ka heli kartid. qasab ma aha hal meel inaad kasoo adeegtid. hadda waxaa sameeyey marka fadhigii miiska ahaa roogii waa kaasa. waa u jeedin wax yar waaye, wax badan ma ahan. cadeys iyo buluug yar iyo grey yar ku jiro. waxaa waaye roog oo simbal ah oo dansan yani zaa'id ah u waalnayn. ma fahanti?
intaas marka waxaa ku xijisan doonaa ilaahay kuma darnaaday insha allah. qaybtii kale oo qurxinta miiska qolka yani cafishka inuu ka bato muhiim ahan, yani simbalaa rabnaa anaga waxaa qarash badan naga qaadanaynin oona qurux noo sameynaya. qolka mar walba uu firaaqo yahay, mar walba quruxdiisa ay soo baxday. qaybtii kale waa kaasaasay kusoo baxday fareemka iyo is agyaalaan. miisaska waxyaabaha la saarto haddaa helaysid dhalooyinka yaryarka ah meesha seeto uwaxyada wax alla waxaa heli kartid oo miiska lagu quruxsan karo waa soo qaadan kartaa. aniga hadda waxaa soo qaatay saxankaas yarka ah. sidoo kale nal yar oo asna la saaraayo. nalka mar walba qolka uu nalalka ay ku badan yihiin mar walba quruxdiisa ay zaa'id sii tahay waaye. iyo catarka loogu talgalay qolka inuu ku carfiyo. catarada nooca rabtida isticmaali kartaa. ayagana waxaa laga helaa meel walba oo waxyaabaha decorationka sambile hadday noqoto filsan shaaciye gabar dhaha jirto online ku gadaa shaaciye online store. xamarweyne qayb waxaa jirto Maria Axmedey koofeerkeeda gabar kasoo sakeyso aad ayadana alaaba cajiib keento oo yani zaa'id ma sha Allah qurux badan. gabadhaas waxaa rajeyna hal maal ayadana inaa meeshad alaaba kasoo gadgadana idin tusi doono. catarkii waxaa kaasa nalka ay sheegay kan waaye bateriyo wata. meel walba ka heli kartiin suuq bakaara had kaas ka soo gaday. marka waxaa muhiim ah mar walba alaabaha inaa yani hal maal aad soo gadid ma ahan, step step loo soo qaataa. dhalada yarna waxaa waaye labadii kursi dhexdooda uu talgalay wax yar ku jiro cadaan waaye dhalada. nalka markii la shidana saan ku soo baxaya quruxdiisa. nalka cadaan waaye maxaa la dhahay alaabaha dhan way soo ismaajmaaj gareynayaan. waxaa kugula talinayaa kalarada oo si isku qaataan inaa mar walba ka fikirtid inaa maxaa la dhahay gashid applicationkan oo hadda idin soo saari doono Pinterest aa la dhahaa. yani wuxuu ku siinaa idea mar walba oo rabtid inaa guri qurxisidna fikradda aad u haysatid alaabaha aa u baahan tahay ee kuu qorsheysan yihiin ee kuu qoran yihiin suuqa tag. laakiin suuqa ha iska tegin, yani wixii ishaada qabato ha iska soo qaadanin. qolka fadhiga waa kaasaa sidaas quruxda badan oo ku soo baxay. yani ani waa ka helay yani wax simple ah waaye oo ka badbadis aan lahayn. qarashkan haddaa idin sheego yani waxaa waaye qarash yar galay qurxintiisa, yani wax expensive oo qaali ahna meesha hadda kama muuqdaan. miiskaaneta alkowthara ka soo gaday haddaa u baahantaa waa ka helaysaa. mar walba marka waxaa fiican inaa ku tashatid jeebkaaga. adoo jeebkaaga ku tashanaysid waxaagana quruxso oo ka dhig wax qaali ah. hadalkaas waa hadal cajiib ah. adoo jeebkaaga ku tashanaysid waxaa quruxso oo ka dhiga wax qaali ah oo qiimana ku leh. waxaa rajeynayaa gabdhaha walaalihii iida insha Allah inaa qolalkiina yani si qafiif ah oo simple ah u samaysan doontiin qurux badan oo cajiib ah martidiinana ay ka heli doonto. haddii aad muuqaalka ka hesheen like badan soo saara, subscribe-tana waxaa waaye liga baqiilin. waxaa kusoo xijinayaa haddii aad videogan aad uga heshaan qolka jiifka insha Allah iyo qolka caruurta ayaga laftirkood. haddana waa sawirada aan ka qaaday iyo sidee kusoo baxay. ما شاء الله عجيب واي. آذا ومحسنتهين وداوشة مقالكينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.